dhaqankii la tuura wax badan shiikh ku taagsaday timahana wax badan baa la yidhi toosu soo jaray wax badan baa tahriib laga hadlo la isu tuurayay waxse taa ka daran baan arkoon hoos balloo tabin waxse taa ka daran baan arkoon hoos balloo tabin af soomaaligii toosana waa la taatiray hadduu tiirsanaan jiray baryahan wuu tukubayay burburkii dib buu nagu rido waana dhaawacaya dhaqankii oo hidii aan lahayn dhooba lagu tuure culimadu wixii ay dheen dhagaha loo diidi warburtidii reer Puntland gesi iyo waxgarad gambooley iyo gabdhiyo gudcad iyo gurbood guud ahaan gacalayaal geedka aad u cunteen garashadii idinka goo iyo gabi idinka dhigay ficilka kii guul daraa guudka idinka suray samaha idin garan marsho gaasir idinka dhigay anigu garan waaye nafsigaad hore u gasheen kulankan oo ahaa bandhiga horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa qaar ka mid ah iskuulada deegaanada Puntland waxa ay ku tartamayeen gabayo iyo hidaha iyo dhaqanka waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda hay'ado shaqo wadaag la ah iyo arday ka socotay iskuulada uu tartankani dhex yaalay iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda waxbarashada Puntland Faadumo Shukri oo ugu horeyn halkaasi ka hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda kulankan iyo muddadii uu tartankani oo lagu qabtay 4 gobol socday faa'iidooyinka laga gaaray salaan kadib waxa weeye halkan bandhigan aad u jeedaan oo aad u mugga iyo miisaanka badan waxa loogu talagalay waxa weeye in lagu soo bandhigo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed taasoo in dhaweyd la dardar gelinayay wasaaradda tacliinta iyo hay'adaha la shaqeeyaba ay dardar weyn geliyeen markii loo arkay dhaqanka Soomaalidu inuu yahay dhaqan aad iyo aad u qiimo badan isla markaasna aad moodaysa baryahan dambe iyo burburkii Soomaaliya ka dhacayba in dhaqankii uu hoos u dhacay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Cabdulqaadir Cusmaan ayaa isna sharaxaad ka bixiyay barnaamijkan oo muhiimadiisu ahayd soo noolaynta afka Soomaaliga iyo dhaqanka waxa uu xusay in wasaaraddu ay mas'uuliyad gaar ah iska saartay inta hawshan ay socotay dhaqanku muhiimadu nooleeyahay isu tilmaamayno wasaaraddu waxay xoog saari doontaa kana shaqeysay horena haddana ka shaqeyn doontaa Ilaahay idmo dhaqanka iyo xoojintiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Mudane Abshir oo Yuusuf Ciise waxa uu sheegay in kulankan uu yahay mid loogu talagalay in lagu xoojiyo adeegsiga iyo kor u qaadida afkeena iyo dhaqanka Soomaaliyeed inaan ka soo qayb galno bandhigan horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ku tartamayeen qaybtiisa suugaanta ardayda dugsiyada wasaaradda waxbarashada gobolada kala duwan ayna ku tartamayeen qaybta suugaanta ama gabayga waxaan oran karaa runtii waa arrin muhiim ah in ardayda lagu tartansiiyo dhaqankooda gaar ahaan gabayga iyo suugaanta in lagu tartansiiyo waa qayb ka mid ah manhajka isla markaasna ka qayb qaadanaysa hal abuurka iyo kobcinta garaadka ardayda halkan waxaan ka aragnay ardaydii yaryarka ahaa runtii daadooduna aad u yarayd iyo gabayadii iyo baraamburadii ay soo bandhigeen runtii wax aad iyo aad u taabanaya qalbiga isla markaasna ka waramaya waaqica jira iyo mawaadiic runtii aad iyo aad loogu baahan yahay ama ha noqoto af Soomaaliga iyo xoojintiisa ama ha noqoto qaybihii kale ee Macaad iyo Salma ay ka hadleen oo ah nabadda iyo wixii la mid ah baan ku bogaadinaya in Allaale intii soo abaabushay iyo intii ka qayb gashay iyo heedda Save the Children oo gacanina ka siisay iyo intii ka soo qayb gashay dhammaan aad iyo aad baan idin salaamayaa shirkiina insha Allah saasuna ku xiran yahay aad iyo aad baad mahadsantiin gabagabadii kulanka ayaa waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore galay iyo maamulada iskuulada ay ka socdeen waxaana kaalinta koobaad galay Axmed Cali Faarax oo ah arday dhigta dugsiga sare ee Alwaaxa
qaybna waxa waaye shahaadooyinkan qof walba shahaadaan siinaynaa qaybta labaad waxa waaye shahaado iskuulladii ka qayb galay tartanka baan iyagana waxaan u samaynay shahaado ay derbiga ku dhajisan karaan oo si ay u muujiso axmed cabdulaahi faarax wuxuu ka soo gobolka nugaal wuxuu ka socdaa iskuulka alwaaxa axmed cabdulaahi faarax la yiraahdo mucaad cabdulqaadir maxamed gobolka haylaan dhahar iskuulka baraaga qol maxamuud soo faysane raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland Garowe.